amarkii duqa magaalada Muqdisho uu bixiyay ahaa in magaalada xoolaha laga xareeyo si magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii u soo noqoto shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan ay u dareemaan magaalo nabada oo nadiif ah runtii maanta waxaan joognaa baadi qabadka oo arkaysaan inta neef xoolaha ay ku sugan waxaan nasiib darro ah marka in shacabkii gobolka Banaadir ku dhaqnaa aysan nagala shaqaynaynin waxyaabaha annaga aan tabayno oo ah in magaalada Muqdisho nadaafadeedii iyo bilicdeedii la soo celiyo waxa anaga fulinayna amarkii duqa magaalada Muqdisho aan gudoomiyaha gobolka ayaan ku dhaqaaqnay bariyahan hawshaasaan wadnay si baaxad leh u socotaa waxay ka socotaa 17 degmo ee gobolka Banaadir ay ka socotaa ururinta xoolaha baadida ah aad ay u mahadsan yihiin ciidanka ka shaqeynaya ciidanka aan ka jeefanino xalay waxaan wadnay 7 saac iyo bar 6 saac 9 saac ilaa waaga uu ka bariyo waa sidaad ogtihiinba maalmahan waxaa socda shaqooyin aad u dardargelinayso nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda ee ka mid tahay ka xareynta xoolaha magaalada sidaad ogtihiin xilli roobaad ayaa lagu jiraa maalmihii ciidda ayaa nagu soo food leh magaalada cid walba muwaadin Soomaaliyeed inuu ka shaqeeyo ayaa loo baahan yahay sidaad arkaysaan xirada waxaa ku sugan xoolo aad u tiro badan laga soo xareeyay magaalada gudaheeda sidaad ogtihiinba magaalada Muqdisho waa caasimadda dalka hooyo waa caasimadda Soomaaliya inay ahaato siday hadda ku sugan tahay wax loo dul qaadan kara maahan muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda waxaan leenahay fadlan u dhaga nuglaada ama amiirta ka soo baxaysa dawladda hoose ma ahan meel xoolo lagu haayo caasimadda gudaheeda mar walba aan digniin u bixino ama aan u tagno guryahooda ugu tagno ama moorada ay ku sugan tahay xoolaha tagno mar walba aan soo xareyno haddana magaalada sidii ayaa loogu soo celiyaa sidaad arkaysaan xoolaha hadda maanta meeshaan ku xareysan sida ay ahayd amarka duqa magaalada oo ahaa in neefka marka la soo qabto la sameeyo timbaro lagu garanayo mar labaad hadduu ku dhaco mar saddexaadna inay dawladda hoose ay la wareeg